الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مركز waxaan salaamayaa saxaafadda iyo dhamaan bulshada reer Galmudug gaar ahaan bulshada reer Guraceel. Waxaan halkan ka cadeynayaa in aysan jirin wax ciidamo dawladeed ah oo la wareegay saldhigan ama habayraati wax ciidamo dawladeed oo soo galay saldhiga. Waxa jiro muuqaalo ama dad ay duubeen oo baraha bulshada dhigayso la sheegayo taas habayraati wax ka jira malaha in saldhigan ciidamo dawladeed ama la wareegeen ama ay magaalada soo galeen. dadka saldhiga joogay waa dadka Soomaaliyeed oo magaalada u dhashay waana imaan karaan waana joogi karaan ummaduna waxay ka mid tahay ummadii loo shaqeynayay saldhiga iyo booliskana waxa ka dhaxaysa wada shaqeyn. Marka waxaan halkan ugu baaqayaa dadka yacni ma taqaanay faafinaya waxyaabaha noocaas deegaanka ka faafinaya waa la ogyahay waana la xisaabtami doonaa haddii alla idmo kama aanan bixin saldhiga waan joognay ciidanku sidii iyagan u ahaayeen inkastoo shaqo ay jirto haddana ciidanku sidii iyagan u ahaayeen wax ka baxay saldhiga habayraati waxaan ku mashquulsanahay shaqo saldhigana waa aan joognay meelna waana bixin. Waxaan u jeedinayaa dadka noocaas oo jooga deegaanka ama meel kale ha joogaan waa ognahay dadka waxaas ka shaqeynayo oo barabagandada ummadda u sheegayo waana la xisaabtami doonaa haddii alla idmo insha Allah. wax habayraati ciidamada dawladeed la yiraahdo oo magaaladan ku jira ama soo galay ama u soo dhawaaday ma jiro. ciidamada ammaanka ku haya al-sunna wal jamaa degmada iyo haafaheeda dhan amnigeeduna waa sugan. waxaan rabaa sidoo kale inaan fariin u diro dadka mas'uuliyiinta sheeganaya ee hawdka ku jira hawdka inta muuqaalada ka soo duuba ama fariimaha ka soo qoray dhahay mas'uuliyiinta sheeganaya dhahay magaaladan qabsanay iyo ciidamada dawladda magaalada la wareegay. waxaan leeyahay nimankan hawdka ku jira magaalada ciidan kama xigto waa meesha u dhalateen waa meesha ku dhasheen waa meesha yacni joogi doontaan. waxaan ugu baaqayaa in barabagandada noocaas ayaguna ay joojiyaan haddii alla